kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeenan qodobada aad daawan doontaana waxa ugu waaweyn Mareykanka oo diyaarado dagaal iyo ciidan kala degay saldhigii magaalada Berbera xogta ugu dambeysa saldhigii Imaaraadka oo Mareykanku uu la wareegayo Somaliland oo heshay taageero kale oo culus dhaqdhaqaaqyo hadda socda talaabooyinkii ugu dambeeyay cabsida laga qabay xaaladda Berbera iyo macluumaadka hadda laga helay saldhigii weynaa ee Imaaraadku ay baneeyeen xogaha xasaasiga ah arintan la xiriirta iyo warar kale ayaa daawan doontaan balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka noo share garaysa leeg saarto meel fog gaarsi qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adiga oo rukumanaya barteenan Rise TV furagan balka digniinta aragtidaadana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeb waxagaag aan ku bilowno waxa Mareykanku uu qaaday talaabo weyn taasi oo ka dhigan in xilligani ay kaga jawaabayaan xaaladda qatarta ay soo cusboonaatay iyo talaabooyinkii ugu dambeeyay ee la qaaday oo dhaqdhaqaaqyadoodu ay socdeen maalmihii la soo dhaafay dawladda Mareykanka ayaa ciidamo iyo diyaarado dagaal oo wada agab ciidan ama agab military waxay kala degtay Berbera halkaasi oo ay durba ka bilowday dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo la rumaysan yahay in ay talaabooyinkaasi Mareykanku u qaadeen sidii ay u soo afjari lahaayeen dhaqdhaqaaqyada ka socda deegaanadaasi qaarkood oo ay wadaan dhinacyo ku lug leh talaabooyinkii ugu dambeeyay ee la qaaday iyada oo xogaha la helayo ay intaasi ku sii darayaan inay xoogeysteen dhacdooyinka taagan hadda iyo dhaqdhaqaaqyada military dawladda Soomaaliya ayaa hore ugu goodisay inay qaadayso talaabo military oo xoogan taa oo ka dhigtay mid ay si degdeg ah uga jawaabaan dhinaca iyo sidoo kale dawladda Mareykanka kadib markaasi Muqdisho lagaga dhawaaqay go'aan aad u culus oo ay markaasi ku dhawaaqeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya go'aankaasi oo ahaa in Imaaraadka uu isaga baxo guud ahaan dalka kaasi oo go'aan culus ah ayaa haddana waxa ay talaabadaasi keentay in ay sii xoogeystaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo talaabooyinkii ugu waaweynaa ee socday iyada oo xogaha la helayo ay muujinayaan in markaasi ay talaabooyinkani ay kordheen dhaqdhaqaaqyada qaarkood ayaa waxa ay soo baxeen kadib go'aanka golaha wasiirada Soomaaliya go'aanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay qaateen ayaa dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta waxa si weyn markaasi u saameysay maamulada kala duwan ee Puntland iyo Jubaland si la mid ah saameyn ay ku yeelatay Somaliland heshiisyada iyo is-afgaradyadii dawladda Soomaaliya ay la gashay dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta ee la baabi'iyay waxa markaasi ku saabsanaayeen dhinacyada iskaashiga amniga iyo difaaca ee laba geesoodka ah go'aanka waxa uu quseeyaa dhammaan heshiisyada iyo wada shaqaynta ay ku joogeen dekadaha Berbera Boosaaso iyo Kismaayo guud ahaanna waxa la faray inay isaga baxaan magaalooyinkaasi oo dekadahaasi ay faaruujiyaan taasi waxay keentay in si degdeg ah ay dhinacyadan qaarkood talaabooyin xoogan u qaadaan go'aankan waxa uu la xiriiraa warbixino iyo cadeymo xoogan oo ku saabsan talaabooyin guracan oo lagu dhibaateynayo gobonimada midnimada qaranka iyo madax banaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu yiri go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay taasi oo meesha ka saaraysa wax kasta oo hore u taagnaa iyo sidoo kale isdiidooyinka waaweyn ee la xiriira arrimaha hadda taagan dawladda Imaaraadka Carabta ayaa taageero badan waxay markaasi amni iyo siyaasadba siisaa Puntland oo ay u sameysay ciidanka badda ee BMBF halka ay maamulaan dekada Boosaaso si la mid ah Berbera iyo dekada Kismaayo iyaga ayaa gacanta ku hayay taasina waxay keentay mid kala dhantaasha dhinacyadan culays badanna abuurta sidoo kale taageero amni siyaasad ayuu Imaaraadku siiyaa Jubaland halka Somaliland uu la leeyahay xiriir gaar ah Abu Dhabi ayaa si heer sare ah u dhistay dekada Berbera taasi oo ka mid ah mashaariicda istiraatiijiga ah ee ay ka fulisay geeska Afrika dhinaca kalena
qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Muqdisho ayaa waxa ay markaasi la sheegay inay xiriir dhow ay la leeyihiin Dubai, waxaana si dhow isha loogu hayaa waxa xigi doona tallaabadan xasaasiga ah iyo Imaaraadku cidda ay soo dhisan doonaan si mar kale ay ugu soo laabtaan arrimaha Soomaaliya. xiriirka Muqdisho iyo Dubai ayaa galay maalmihii ugu adkaa iyada oo Soomaaliya ay si toos ah ula safatay boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay ku taageertay hogaaminta arrimaha gudaha ee dalka Yemen, taasi oo abuurtay xaaladda keentay hadda in isqabqabsigan uu siyaado dhinaca kalena la faro Imaaraadka qudoodu amar culus waliba la siiyay inay isaga baxaan dalka. tallaabadaasina ay si degdeg u qaaday dowladda Soomaaliya. tallaabada Imaaraadka dalka looga saaraya marka laga tago iyo amarka la siiyay Berbera inay baneeyaan, waxaa tallaabo kale oo aad u weyn iyana qaaday Mareykanka oo ciidamo iyo saad military ka dejiyay dekada Berbera halkaasi oo ay markaasi doonayaan in ay si guud ula wareegaan iyada oo dhaqdhaqaaqyadani ay tahay tii ugu weyneed. haddana waxa ay muujinaysaa tani mid xoojinaysa dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa oo ay tallaabooyinkani si degdeg ah ay u qaadeen. tan iyo markii lagu dhawaaqay tallaabadan military waxa ay muujinaysaa xaaladdu khatar xoogan iyo saameyn siyaasadeed oo aad u xoogan, iyada oo ay tallaabadaasi dhinaca kale u sii dhigayso mowqif ahaan dhaqdhaqaaqyada xoogan ee socday maalmihii ugu dambeeyay. tallaabada military ee dhinaca kale ay qaadeen Mareykanku ayna qaadeen hadda si degdeg ah si uga jawaabaan xaaladdan guud ee taagan, waxay ka dhigaysaa mid sii xoojinaysa dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa, iyada oo waliba hadda loo qaaday tallaabooyinkan soo afjarista dhaqdhaqaaqyada iyo saameynta ay leedahay dhinacyadan qaarkood. xogaha la helayo ayaana muujinaya in ay sii xoogeysteen dhacdooyinkii waaweynaa iyo gaboodfalladii hore u dhacay. Imaaraadka baneynta ay baneynayaan saldhiggii military ee Berbera waxa ay fududeynaysaa in Mareykanku uu la wareego saldhiggaasi si loo dedejiyo qorshaha arrimahaas la xiriirana. waxaa sii xoogeysanaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo tallaabooyinkii ugu waaweynaa oo ka dhigan hadda inay xoogeysteen dhaqdhaqaaqyada military ee socday. tan iyo markii lagu dhawaaqay go'aankana waxaa si degdeg loo qaaday dhacdooyin kale oo ay dhinaca kale u dhigeen mowqifka aadka u culus oo ay gaartay dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta, iyaga oo fariisinkoodii iyo saldhiggii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen dekada Berbera ay si rasmi ah ugu wareejiyeen Mareykanka oo la rumaysan yahay in isagu uu ku lug yeelanayo tallaabooyinkan socda qaarkood. waxaana dhaqdhaqaaqyadan hadda ay yihiin kuwii ugu waaweynaa ama ugu xooganaa, iyada oo ay ka dhigan tahay in ay tallaabooyinkani sare u sii kaceen. xogaha la helayo ayaa muujinaya in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ama tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee arrimahan la xiriiray ay ka dhigan yihiin inay si degdeg uga falcelinayaan xaaladaha guud ee taagan. Mareykanka ayaana go'aan rasmi ah ku soo saaray tallaabada la qaadayo, iyada oo ay ka dhigan tahay sidoo kale dhacdadii ugu dambeysay ee hadda taagan mid sii xoojinaysa dhaqdhaqaaqyadan kala duwan ama tallaabooyinkan arrimaha gaarka ah la xiriira, iyada oo ay markaasi tallaabadani noqonayso mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee la xiriira dhaqdhaqaaqyada aadka u xoogan ee tallaabooyinkani quseeya. xogaha la helayo waxay muujinayaan in ay markaasi dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee lala xiriirinayo arrimahan hadda taagan ay ka dhigan tahay in ay sii xoojinayaan dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed iyo tallaabooyinkan arrimahan sida gaarka ah ugu gadaaman, iyada oo ay xoogeysanayaan dhaqdhaqaaqa military iyo tallaabada aadka u xoogan ee Mareykanku hadda uu damacsan yahay in uu qaado kadib wada hadallo iyo tallaabooyin aad u xoogana oo socday maalmihii ugu dambeeyay, taa oo ka dhigan inay sii kordhayaan dhacdooyin waaweyn iyo tallaabo military oo ay sidoo kale ka sii dhigayaan xaaladdan mid khatar kale abuuri karta ama
abuuri karta marxalad ka duwan waxa hadda taagan iyada oo ay weliba jirto xaaladihii ugu dambeeyay haddana waxa soo taraysa dhaqdhaqaaqyada military iyo tallaabooyinkan aadka u xoogan ee la xiriira dhacdooyinka taagan tan iyo markii lagu dhawaaqay arrimahaasina waxaa xoogeystay tallaabada military ee ay qaaday dhinacyadana si degdeg ay u qaadeen iyada oo ay ka dhigan tahay sidoo kale arrimaha hadda taagan kuwa xoojin buuxa siinaya ama taageero weyn siinaya dhaqdhaqaaqyada Mareykanku uu wado ee uu na damacsan yahay xilligani waxa xogaha aynu helnay ay muujinayaan sidoo kale kuwa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay tallaabooyinkooda xoojiyay iyada oo ay qaaday dhaqdhaqaaqa Mareykanku waji kalena u yeeshay xaaladan haddana Mareykanka qaadistiisa tallaabadan culus waxay keenaysaa in uu markaan si rasmi ah uga jawaabo marxaladihii ugu dambeeyay iyo qatarihii waaweynaa ee taagnaa iyada oo ay ku dhawaaqeen in saldhigyada ay ka baxeen Imaaraadka Carabta oo uu ugu weyn yahay saldhigii Berbera oo ahaa saldhigga ugu weyn ee Imaaraadku ku lahaa deegaanada Somaliland Mareykanka markan lagu wareejinayo taa oo ka dhigan in Mareykanku uu qaadayo dhankiisa tallaabooyin xoogan oo taageero buuxa ugu fidinayo dhanka iyo Somaliland walow ay xogaha la helayo muujinayaan kuwa sare u sii qaadaya dhaqdhaqaaqyadan iyo tallaabooyinkan haddana dawladda Soomaaliya dhabar jab weyn ay ku noqon doontaa tani marka la eego sida ay wax u socdaan iyo xaaladda guud ee hadda taagan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay tallaabada military ee Mareykanku u qaaday iyo macluumaadka kale ee ku xeendaaban dhacdooyinka taagan iyo tallaabooyinka kale balse marka laga gudbo taasi dhinaca kale waxa uu yahay tallaabada Mareykanku u qaaday kii ugu weynaa ee la filan karay waqtiyadii ugu dambeeyay in la qaado iyada oo ay dhinaca kale tallaabadaasi ka dhigaysa Somaliland mid taageero buuxa ay u muujinayaan iyada oo Mareykanku uu si toos ah markan ula saftay Somaliland isaga oo awood military u adeegsanaya aqoonsiga Somaliland iyo ictiraafka ay helayso waxaana xogaha hadda la helay ay muujinayaan ama la rumaysan yahaba in ay tallaabada Mareykanku hadda uu qaaday ee uu kula wareegay deegaanadaasi dhaqdhaqaaqyadana uu uga bilaabay in ay fududeyn doonto in saameyn siyaasadeed oo xoogan Mareykanku uu markaasi Israa'iil ama Yahuuda ugu dhex yeelo Somaliland gudaheeda saldhigana waxaa la rumaysan yahay in isaga uu ku wareejin doono Israa'iil sida Imaaraadka hadda uu kala wareegay oo kale waxaana xogaha la helayo si gaar ah ay u dul istaagayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo macluumaadka la xiriira tallaabooyinka waaweyn ee hadda taagan diiradana la saarayo taa oo ka dhigan mid sii xoojinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo ahaa kuwo aad u xoojiyay dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed ee socday iyo tallaabooyinka military ee dhowrkii maalin ee la soo dhaafay muujinayay inay si weyn markaasi u kordhayeen waxaana tallaabooyinkani ay muujinayaan hadda kuwo ficil kale u yeelaya dhaqdhaqaaqyada socda iyo tallaabada military ee Mareykanku uu mar kale qaadi karo marka laga soo tago inay xoogeysteen dhacdooyinkana waxa ay sidoo kale ciwaanka sheekooyinka Mareykanka hadda uu sameynayo iyo tallaabooyinka uu qaadayba ay u dhigaysaa dhinaca kale taasi oo tallaabo culus oo Mareykanku uu qaaday ka turjumaysa marka la eego sida ay wax u socdaan iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyadan military iyo tallaabooyinka socday iyada oo ay sidoo kale hadda si degdeg ah u qaadayaan dhinacyadani xogaha dheeraadka ah iyo macluumaadka la helayo ayaana waxa uu ka dhigay kan midka ugu weyn ee saameynta xoogan leh Mareykanka ayaana weli damacsan in uu saldhigyada military ee Berbera iyo goobaha kale ee ku yaala Somaliland gaar ahaan Saylac iyo goobo kaleba inuu si rasmi ah ula wareego waxaana durbabo uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo aad u culus oo ay dawlado waaweyn oo hadda taageersan dawladda Soomaaliya qaarkood ay ku dhawaaqi karaan in laga hor yimaado arrintaasi.